السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنت وعنا wanaagsan dhammaan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan meel kasta joogtaan waqti kasta idin tahay. Waqtiga waa idin wacnaado badbaadiye naxariistay banaa korkiina ha ahaato. Ku soo dhawaada qiso gaaban oo mudan xaqiiqatan cibro qaadasho mudan in lagu cibro qaadasho mudan. Qisadan waxaa wariyay sheekh la yiraahdo sheekh weyn oo ka mid ah culimada islaamka. sheekhaas oo la yiraahdo Umar al-Ashqari oo degan waxa weeyaan wadanka Urdun qorayna kitaabka la yiraahdo waxa weeyaan Mawaafiq. sheekhu waxa uu bilaabay qisadiisii isagoo ka waramaya waxa uu yiri sidatan. waxa uu yiri waxa jirtay gabadh yar oo ku barbaartay guri wanaagsan oo ahlu khayr ah. waa gabadh yar oo ku barbaartay guri wanaagsan oo ahlu khayr ah oo diin leh. gabadh waxay ahayd gabadh yar oo asturan oo waxa weeyaan sidii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala yiri awaamirtii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qaadatay oo asturan bay ahayd. waxay dhigan jirtay waxa weeyaan dugsi ama madrasada ayay dhigan jirtay. isla markaana waxay ahayd inantaas gabadha yar ee xijaaban ee waxa weeyaan asturan bay ahayd ee dharkeedu asturan yahay. haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayay waxay ka soo noqotay iskuulkii iyadoo oo waxa weeyaan walwal iyo tiiraanyo iyo cabsi badan ka muuqato. dabeetana hooyadeed ayaa su'aal weydiisay. waxaa ku tiri hooyo maanta miyaad xanuunsan tahay? miyaad xanuunsanaysaa hooyo maanta? waxayna ku tiri gabadhii yareed ugu jawaabtay hooyadeed maya hooyo ma xanuunsanayo. waxay ku jawaabtay gabadhii yareed hooyo ma xanuunsanayo, laakiin waxay soo canaanatay macallimadii waxay dhigaysay. markaas waxaa canaanatay macallimadeedii ayaa canaanatay. waxayna igu soo canaanatay wax kalaba maahee dharkan aan xidhanahay ee asturan ayay marka waxa weeyaan igu canaanatay, ama inaan xidhanahay dhar dhaadheer oo asturan aan xidhanahay wax kalaba maaha ayay igu canaanatay. waxayna igu tiri dharkaa iska dhig, dhar gaagaaban soo gasho. yacni dee waa dhar aan asturnayn, waa dad waxay doonayaan waa dee qofkaas waa qof gaal ah oo kristan ah oo dee waxa weeyaan aan aaminsanaynba diintan iyo Ilaahi subxaanahu wa ta'aala wuxuu ina amray dee qofku haddaanu aaminsanayn waxa weeyaan waa dhibaato taasina waxa weeyaan qofka aan la joogo markaas xaqiiqatan waa ku dhib mudanaya. balse meesha maxaa siday arrimuhu u dhacayaan iyo sidoo xaalku noqonayaba bari la dhageyso. way u hanjabtay. waxay ku tiri kuguma arki karo dharkaas, waana iska dhigaysaa waxaanad gashanaysaa dharkaas gaagaaba mad gashanaysaa. waxay tiri hooyadeed dharkan dhaadheer hooyo so waxa weeyaan dharku Allah subxaanahu wa ta'aala doonaya maaha. waxay tiri haa hooyo waa dharkii Ilaahi subxaanahu wa ta'aala rabay, laakiinse macallimadu ma rabto dee dharka sidana. gabadhireed waxay tiri hadalkaas ayaa ugu jawaabtay hooyadeed. hooyo wanaagsan ayaa dhashay markaas. hooyadeed waxay tiri iyadoo waxa weeyaan dejinaysa qalbigeedana dejinaysa oo caqli celinaysa ayay waxay ku tiri
hooyo Alle subxaanahu wa tacaala ku abuuray ee suuraddan kuu sameeyey ee waxa weeyaan isagu ku abuuray miyaad adeecaysaa ood maqlaysaa mise waxaad maqlaysaa ood adeecaysaa ood amarkiisa qaadanaysaa makhluuq adigoo kale ah cajiib maasha allah xaqiiqatan waa hooyo waxa weeyaan caqli badan waxa weeyaan diintana fahansan hadalkaasi ugu jawaabtay ma waxaa ku tiri hooyo ma waxaad adeecaysaa makhluuq adigoo kale mise ilaahay subxaanahu wa tacaala ku abuuray ee suuraddaa kuu sameeyey saa kuu abuuray ayaad adeecsid ka amar qaadanaysa gabadha yareeda caqliga badneed waxaa tiri mee waxaan adeecayaa alla subxaanahu wa tacaala ayaan adeecayaa wax allaalihi wixii dhacayaaba ha dhacaan ilaahay subxaanahu wa tacaala i abuuray ee suuradda ii sameeyey ayaan adeecayaa maalintii dambe gabadha yareed waxay ku noqotay iskuulkii ama goobtii waxbarasho iyadoo dharkii maaha kuwo ka duwan oo kasii dhaadheerba gashan macallimadii waa aragtay aada ayay dabeetana u naxday dabeetana waxa ay la yaabtay gabadhii shalay waxa weeyaan ay wuxu sheegaysay inay haddana amarkeediiba aanay qaadanay ka tallaabsatay dabeetana aada iyo aad ay u canaanatay gabadhiireedi waa oyday way ilmaysay oo hindaran ayay oyday markaas dabeetana macallimadii ayaa sidii u oysayba way ka naxdayba isla markii dabeetana waxaa ku tiri su-aal bay weydiiso maxaa kugu dhacay isla mar ahaantiiba gabadhii yarayd waxaa ku tiri macallimadii hadal aada iyo aada qalbigeeda u taabtay oo qalbigeedii ku weynaaday waxayna tiri gabadhii yarayd ma garanayo cidda aan adeecayo adiga mise isaga ma garanayo cidda aan adeecayo adiga mise isaga macallimadii su-aal bay weydiisay waxaa tiri aniga gartaya isaga iyaad uga jeedaa